Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclaystay inii soo gudbiyo film lagu magacaabo Ninja Assassin. Intaynaan guda gelin muuqaalka, fadlan haddii aad tahay markii koowaad soo booqato channelka subscribe leh. Sidoo kale like saar muuqaalka. Filmkan waxa uu ku bilaabanayaa goob tattoo lagu mariyo oo uu leeyahay nin waayeel ah, khibradna u leh samaynta tattoo-ga. Waxa uu u shaqaynayay nin dhalinyaro gangster ah. Markan wiil ayaa u keenay cid madow. Gangsterka iyo ninka wehelinaya ma garanayaan macnaha ciidan madow waxay ka dhigan tahay. Laakiin odayga yara naxdin darteed waa uu barafoobay. Waxaanu daaha ka qaaday macnaha ciidda madow oo ah in rag budhcad ah ay soo galeen goobta. Waxaan uga waramayay dhacdo yaab leh oo ragga arxanka daran ay ku sameeyeen muddo ka hor, isagoona tusayay saameynta ay ku reebeen weeraradaasi. Inta ay fiirinayeen dhaawaca odayga, waxaa isla markiiba go'ay madaxa ninkii wehelinayay gangsterka. Wax yar kadib waxaa xagga sare laga soo daadiyay silsilado, iyadoo lagu daldalay ragga kale, halka ay raggii bilaabeen inay xabadayaan xagga sare. Marka qof kasta oo goobta ku sugnaa dhinto, laga reebo odaygii lahaa dukaanka, waxaynu aragnaa nin afduuban oo kasoo baxaya aagga mugdiga. Intaa kadib, waxaa layna barayaa qabiilka Osuna oo ah qabiilka artayga ku dheereeya uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo Osuna Clan. Waa hogaamiye aan naxariis lahayn. Waxa uu qabiilka iskugu soo ururiyay carruurta yaryar si ay u noqdaan dilayaasha ugu khatarta badan adduunka. Waxaanu siiyaa tababaro aad u halis badan, waxaana loo tababaraa sidii ay u dili lahaayeen madaxweynayaasha caalamka, iyadoo la siinayo qasnado dahab qof kasta oo ka qayb qaata dilka. Sidoo kale qaybta tababarka waxaa ku sugan khabiiro ku takhasusay dilka si ay carruurta yaryar ugu fududeeyaan bartilmaameedyadooda. Qabiilka Osuna waxa uu jiray in ka badan 100 sano, waxayna geysteen dilal muhiim ah. Fadhi ka mid ah fadhiyada qabiilka hogaamiya Osuna Clan waxa uu soo bandhigay wiil cusub oo ku soo daray carruurta, laguna magacaabo Rayso. Waxaana u sheegay carruurta kale in wiilkan noqon doono hogaamiyaha qabiilka isaga dabadii. Tababarku waa ku adag yahay Rayso. Dhabarkiisa dhan waxaa ku yaala dhaawacyo seef ah, kaasi oo ah abaalgudka khaladaadka uu ka sameynay tababarka. Mid ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee aad kaga mid noqon karto qabiilka ayaa ah inaad lahaato awood khaas ah. Rayso gudaha tababarka waxa uu ku tallaabsanayaa loox qaylinaya haddii aad dhinac kaga istaagto, lana rabo inaad dhexda keliya kaga socoto. Looxna waxa uu bilaabay inuu qayliyo khaladka Rayso awgii, halka uu hogaamiyuhuna ka casaynayay cagaha. Habeenkii carruurta dhan si fudud ayaa ay u wada seexdeen. Rayso waxaa hurdada ka kicisay naxariista Kiriko, taasoo cagaha u marinaysay wax ka qaboojiyay qaraaca cagaha. Kiriko waxay ka tirsan tahay carruurta qabiilka. Carruurta dhexdooda looma ogola inay isku naxariistaan, sidaa darteed Kiriko waxa ay baxaysaa si gabaabsi ah. Dhanka kale, hogaamiyuhu waxa uu tababarka gudihiisa uga waramayay dagaalka iyo naxariis darrada. Taa beddelkeeda, Kiriko ma jecla dagaalka, mana aaminsan rabshadaha ay qabiilku taageeraan. Waqtigu si dhaqso ah ayuu u socdaa. Kiriko iyo Rayso waa ay weynaadeen, ma fududa inay hadal isweydaarsadaan, laakiin had iyo goor waa ay isfiiriyaan. Rayso hadda waxa uu noqday ninka ugu kartida badan ee qabiilka tababar ku dhex qaata. Rayso waxa uu ciyaar dagaal la ciyaarayay Takashi oo ka mid ah qabiilka. Rayso waa uu guuldaraystay sababtoo ah tactic-ada uu ku ciyaaray oo ahayd mid khaldan. Hogaamiyuhu waxa uu eedeynayay Rayso, isagoona ku tilmaamay inuu yahay mid daciif ah, waxaana u xanuujinayay si uu isu adkeeyo. Rayso aad ayay u dhibtay ciqaabtan yar, waana uu la xanuunsaday. Ciqaabta taa xigta waa inuu noolaado habeenka xiga, isagoo aan helin wax gargaar caafimaad iyo cunto ah. Subaxa xiga, hogaamiyuhu waxa uu arkay Rayso oo diyaar u ah tababarka maalinta cusub, waxaana ku hanweeyay inuu ka soo baxo imtixaanka uu ku noqon lahaa qofka ugu awoodda badan qabiilka. Waxaa bilaabmay imtixaankii uu Rayso ku noqon lahaa hogaamiyaha qabiilka, taasoo ah inuu qof walba iska difaaco isagoo indhaha iyo gacmaha ka xidhan. Dhanka kale, Kiriko waxay had iyo jeer iska indha tirtaa xeerarka yaryar ee qabiilka, iyadoona ka xun habdhaqanka hogaamiyaha Osuna. Rayso waxa uu uga digayay dhaqamada noocaas ah. Dhanka kale, gudaha tababarka, Kiriko waxaa lagu amray in ay midi iskaga difaacdo nin soo weerara, balse waa ay diiday iyadoona midida tuurtay, taasoo sababtay inuu hogaamiyuhu ku ciqaabo xabsi. Dhowr maalmood kadib, habeen rooban, Kiriko waxa ay isku dayday inay ka baxsato qabiilka, iyadoona Rayso kula talisay inuu raaco, balse waa uu diiday. Wax yar kadib waxaa fashilmay isku daygii Kiriko ee ka baxsashada aagga qabiilka, waxaana lagu wadaa in lagu dilo shacabka qabiilka hortooda, waxaana dilaya Takashi. Kiriko wadnaha ayaa toori laga geliyay isagoo arkaya Rayso. Filimkuna waxa uu isjarayaa dhowr sano kadib. Goobtu waa Berlin. Sarkaalada lagu magacaabo Mika
waxay soo ururisay caddaymo ku saabsan jiritaanka Asuna, balse Maslow oo ah taliyada ka sarreeya ma rumaysan caddaymahan, waxayna isku dayeysay inay ka dhaadhiciso jiritaanka Asuna. Maalintii xigtay, fikir badan kadib, Maslow waxa uu go'aansaday inay baadhaan caddaymo kale oo ku saabsan jiritaanka Asuna, waxayna ogaadeen in mas'uul hore Sabatin uu sameeyay warbixintan la xidhiidha, waxayna sii guda galeen nuxurka baadhitaanka. Dhanka kale, waxayna u jeednaa Rizzo waxa uu ku sugan yahay Berlin oo uu ka degan yahay guri dabaq ah, halka uu weli joogtaynayo tababarkii uu soo qaatay yaraantiisii. Maalin kale, isagoo jooga goobta dharka lagu maydho, waxa uu halkaa kula kulmay gabadh. Warsan iyo weersan markii ay isweydaarsadeen, gabadhii waxay isku dayeysay inay soo weerarto isaga, balse waa uu iska difaacay. Wax yar kadib, waxaynu u jeednaa dhiig ka soo baxaya mishiinka dharka lagu maydho, kaasoo ah dhiiggii gabadha, halkaana laga helay meydkeedii. Dhanka kale, Mika waxay guda gashay baadhitaanka iyadoona guriga wakiilkii hore ee loo dilay ka hadalka qabiilka Asuna, iyadoona la kulantay xaaskiisii. Waxayna xaaska ninku u sheegtay inuu ninkeedu ahaa geesi, balse wax walba ay isbedeleen fadeexado lagu soo oogay kadib. Iyadoona weli u wada hadalka, waxay sidoo kale waxay u sheegtay in maalin cod ka soo yeedhay aagga guriga. Markii uu ninkeedu u baxay si uu codkan u ogaadana, iftiin badan indhaha lagaga qabtay, halkaana lagu dilay. Maalinkii xigtay, xafiiska Mika waxaa soo booqday sarkaal sare, isagoona u sheegay inuu xafiiska u yimid inuu qiimeeyo iyada, balse way cadday. Waxa uu yimid goobta si uu isha ugu hayo dhaqdhaqaaqa Miki. Kadib hadalhaynta dad badan ee dabagalka Mika ay ku daba jirto qabiilka Asuna. Habeenkii xigay, Mika waxay ku soo laabatay gurigeeda ilaa ay ka ogaatay in dabaqa dhan dab ka kacay, waxayna gudaha u gashay dabaqa ilaa laga soo weeraray. Si la yaab leh, nin kale ayaa u badbaaday nolosheeda, maaha cid kale oon ka ahayn Rizzo. Intaa kadib, Rizzo waxa uu bilaabay inuu u sheego Miki wixii ku dhacay sannado ka hor, isagoona u sheegay in tababarka kadib la siiyey bartilmaameed khaas ah, balse uu si arxan darro ah u weeraray hogaamiyaha Asuna, isagoona wejiga ka dhaawacay. Rizzo waxa uu ka soo baxsaday goobta, isagoona iska soo tuuray dhismaha, waxaanu ku badbaaday si dirqi ah isagoo dhaawacan. Waxaanu sidoo kale u sheegay ilaa markii uu ka soo kabtay dhaawacii xilligaas soo gaadhay, inuu ka shaqaynayay sidii uga hortagi lahaa Asuna iyo weliba dil kasta oo ka yimaada xaggooga. Waxayna isku raaceen hotel si ay nasiimo u qaataan, halka Miki ay wacday Maslow iyadoona u sheegtay inuu la socdo Rizzo, sidoo kale uu ka mid yahay Asuna. Markii uu maqlay Maslow, waxa uu u sheegay inuu u soo socdo xaggooga, isagoona sidoo kale diyaariyay qorshe uu ku qabanayo Rizzo. Kulanka cabaar kadib, waxaa bilaabmay qorshaha lagu qabanayo Rizzo, waxaana hareereeyay ciidan, waxaana la geeyay xabsiga. Miki waa ay xanaaqday markii ay ogaatay in Maslow ka dambeeyay qorshaha. Sidoo kale, Maslow waxa uu sheegay in Rizzo yahay qofka ugu ammaanka badan xabsiga, waxayna u gashay Rizzo, waxaana u sheegay in Asuna ay waqti walba soo weerari karaan xabsiga. Wax yar kadib, waxaa dhacay wixii uu Rizzo sheegayay, waxaana xabsiga soo weeraray Asuna. Dagaal badan kadib, waa ay daciifeen ciidanka Mika. Rizzo waxa uu dalbanayay in laga furo silsiladda. Ugu dambeyn, waa laga furay silsiladda, waxaanay ka baxeen xabsiga. Intii ay kusii socdeen waddada, waxaa mar kale soo weeraray ciidanka Asuna. Rizzo aad ayay uga adag tahay inuu ka hortago koox dhan oo ay hal tababar oo isku mid ah soo qaateen, balse markan waxay weji ka weji isku weerareen Takashi. Rizzo waa uu dhaawacmay, balse waqti fiican waxaa gaadhigeeda ku badbaadisay Mika, waxayna u dhaqaaqeen xagga iyo gurigeeda si ay ula tacaasho dhaawiciisa. La tacaalidda dhaawaca kadib, Mika waxa ay Rizzo uga mahadcelisay badbaadinta uu badbaadiyay nafteeda. Sidoo kale, waxay gacanteeda ku haysay qalabka raadraaca, taasoo Maslow u fududeysay inuu ogaado halka ay joogaan. Inta ay ciidanka Maslow kusii jeedeen guriga, waxaa guriga si qarsoodi ah kusoo galay ciidanka Asuna, iyagoona afduubtay Rizzo. Markan, guriga waxaa soo galay ciidanka Maslow, waxay yimaadeen guriga oo keliya ay ku sugan tahay Mika, iyadoona u sheegtay in la afduubtay Rizzo. Aan ku noqono Rizzo waxaa afduubtay hogaamiyaha Asuna, waxaanu siiyey fursaddiisii ugu dambeysay ee uu ku noqon lahaa hogaamiyaha qabiilka, balse Rizzo waa uu diiday taa, isagoona u sheegay in aanu hadda aaminsanin qabiilka. Waxaanu marsiiyey ciqaab si uu ugu khasbo inuu noqdo hogaamiyaha cusub. Ciqaabta kadib, qaylada Rizzo waxay sababtay in afkiisa ka soo dhacdo qalabka isgaadhsiinta, waxaana goobta soo weeraray ciidanka Maslow, iyadoona ay wehelinayso Mika. Waxaanay weerareen Asuna, waxaana halkaa ku dhintay tiro badan oo ciidanka Asuna ah. Dhanka kale, Takashi iyo ciidankiisu waxay si khaas ah u weerareen Rizzo, halka Rizzo uu dilay mid kasta oo ka tirsan ciidanka Takashi, ilaa ugu dambeyn ka dilay Takashi. Rizzo waxa uu soo galay qol kooban oo mugdi ah, waxaana ku jira hogaamiyihii qabiilka,
weerar iyo weerar celis badan kadib iyadoo seefaha la isla dhacay hogaamiyuhu waxa uu ka codsanayay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee qabiilka halka uu Reiso ka diiday. ugu dambeyn Reiso waxa uu in yar u jiraa inuu dhinto. waxaa goobta timi Mickey iyadoona qori ku qabatay hogaamiyaha isagoona isdhiibin. hogaamiyuhu waxa uu raacay mugdiga qolka isagoona xagga dambe kaga yimi Mickey halkaana ku dilay. tanina waxa ay ka xanaajisay Reiso waxaanu si dhaqso ah u dilay hogaamiyaha isagoona banaanka u soo saaray meydka Mickey waxaanu filayay inay dhimatay balse waa ay neefsatay. filimkuna waxa uu ku soo dhamaanaya Reiso oo ka soo boodaya diirkiisa sababay dhimashada saaxiibtiis Kiriko. haddii aad ka heshay muuqaalka ha hilmaamin inaad like dhahdo sidoo kale share dhow gaadhsi asxaabtaada.